shir sanadeedkii dalada guud ee jaaliyadaha Yurub ee Somaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland. Shirkan oo socday 2 maalmood kana socday Hotel Hilton waxaa ka soo qayb galay wasaaradda arrimaha dibadda Finland, xubno baarlamaanka Yurub ah, Professor Ahmed Ismail Samatar, gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, madaxda iyo xubno ka mid ah dalada jaaliyadda Yurub ee SSC. gudoomiyaha dalada Cabdiraxmaan Yaasiin oo wax ka weydiinay shirkan inuu faahfaahin naga siiyo ayaa waxa uu yiri maanta halkan waxa aanu fadhinaa kalfadhigii 11aad ee isku yimaadaan jaaliyadaha Somaliland ee Yurub waa dalada magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan Somaliland Society in Europe gudoomiyaheedii kalfadhigana aniga ahaa saakuna shirka shalay buu noo bilaabay shirkaasi qaybtiisii hore si fiican oo muxtaram noogu dhamaaday ka soo qaybgalaashuna aad bay u badnaayeen haday tahay in madaxda Somaliland qaybtood iyo xisbiyada barkooda nala jooga haday tahay aqoonyahanka Somaliland iyo dhammaan 11 jaaladood ilaa dhowr iyo 50 xubnood oo kamid ah waxaana laga hadlay arrimo aad u fara badan haday tahay dalada arrimaheeda iyo sida guud ahaanba hawlaha u yaala jaaliyadu inay ka soo shaqeeyaan marka aad iyo aad bay wax kasta noogu socdo sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Finland Xasan Cali Sadaxle iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdilaahi Rooble oo ah jaaliyadda sanadkan martigelisay shir sanadeedka dalada SSC waxay yiraahdeen shirka alxamdulillah si wanaagsan buu noogu dhacay shirka madaxiisina shalay buu ahaa hay'adaha waxa yimid wasaaradda arrimaha dibadda gudaha ee dalka Finland waxa la wixii wasaaradaad hay'adaha internationalka Finland ee dalka ka shaqeeya iyo gudoomiye baarlamaanka iyo gudoomiye xisbiga Ucid oo waxaan ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay haddaanu nahay reer Finland inaanu gogoshan dhigno anagu shirkii 11aad ee jaaliyadaha Yurub meel fiican baanu noo marayaa si fiican buu noogu socdaa shirkan oo shalay toole lagu soo gabagabeeyay waxa lagu doortay gudidii hore ee dalada inay sii wadaan iyada oo xubin kalena lagu kordhiyay mar kale gudoomiyaha dalada loo doortay Cabdiraxmaan Yaasiin oo la ka hadlay sidii ay shirku ku soo gabagaboobay iyo waxa sanadada soo socda u qorshaysan waxa uu yiri sad la socotid walaal waxa shirkii halkan ku soo gabagaboobay galabtana waxa ku soo dhamaaday gudidii labadii sanadood u dambeeyay soo wada hawshiisa in dib loo cusboonaysiiyay waxa kale oo ay ku soo dhamaatay shirkani maanta dood qurux badan oo SSC ay u qabatay mujtamaciin ka soo qayb galay halkan iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid iyo aqoonyahan nakala oo uu ka mid yahay Professor Samatar doodaasi waxa la isku wadaagay arrimo badan oo muhiim u ah dalkeena iyo dadkeena si fiican waa loo qaadaa dhigay arrimo dhowr ah oo si fiican la isku afgartay oo la toosiyo wixii naga qalooca wixii aynu dhisanayna aynu halkaas ka sii horumarino marka guul buu ku dhamaaday sidoo kale isla maanta Professor Samatar iyo gudoomiye Ciro ayaa waxay meel fagaara ah kala kulmi doonaan jaaliyadda Somaliland ee dalka Finland guud ahaan Aadan Yuusuf Cismaan Home Cable TV Hotel Hilton Helsinki Finland